Babaygu waa mid ka mid ah fawaakihda uu hodanku ku yahay dalkeena hooyo, haddana inta ugu badan bulshada kama faa'iideystaan. Haddaba daawade, waxa aan warbixintan kugu soo gudbin doonaa faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay babayga. Babayga waxa ku jira qaybaha kala duwan ee nafaqada, waxa uuna qani ku yahay oo aad ugu badan vitamin C. Sidoo kale waxa ku jira xaddi dhexdhexaad ah oo vitamin B9 iyo vitamin A ah. Haddaba faa'iidooyinka caafimaad ee uu babaygu leeyahay waxa ka mid ah: 1. Babaygu waxa uu xoojiyaa difaaca jirka. Xaddiga aadka u badan ee vitamin C-ga ku jira babayga waxa uu sare u qaadaa difaaca jirka. 2. Babaygu waxa uu yareeyaa infekshanka jirka iyo caabuqa. Vitamin C-ga ku jira babayga waxa uu ka qayb qaataa la dagaalanka jeermiska sida bakteeriyada, fayruska iyo waxyaalaha sunta ku ah jirka. 3. Babaygu waxa uu ka hortagaa dhiig-yarida. Babayga waxa ku jira fitamiinka loo yaqaan folic acid, oo ka qayb qaata samaysanka iyo kobcidda unugyada dhiigga cascas. 4. Babaygu waxa uu ka qayb qaataa bogsashada dhaawaca, sida dadka leh cirid dhiigga iyo dhaawacyada aan bogsoon. 5. Babayga waxa uu u fiican yahay maqaarka. Vitamin C-ga ku jira babayga waxa uu caawiyaa samaysanka collagen-ta, oo ah maado ka qayb qaadata samaysanka iyo badqabka maqaarka. 6. Babaygu waxa uu u fiican yahay dheefshiidka caloosha. Waxa ku jira dheecaan la yiraahdo papain, oo ka qayb qaata hanaanka dheefshiidka. Inkasta oo ay aad u tiro badan yihiin faa'iidooyinka uu leeyahay babayga, haddana waxaa jira dad uu aad ugu fiican yahay isticmaalka babayga, waxaana ka mid ah dadka difaaca jirkoodu yar yahay, dadka infekshanka iyo caabuqa qaba, dadka calool fadhiga leh. Haddaba siyaabo kala duwan ayaa loo isticmaali karaa babayga, sida in aad marisid qaybaha kala duwan ee jirka sida wejiga iyo jirka qaybihiisa kale. Sidoo kale in aad shiidato cabitaan ahaanna waad u isticmaali kartaa babayga. Sidoo kale babayga asiga oo sidiisa ahna waad cuni kartaa. Haddaba yaan loo ogolayn isticmaalka babayga. Babaygu uma wanaagsana hooyada uurka leh, gaar ahaan bilaha hore ee uurka. Babayga ayaa sababa in murqaha minka ay si adag isugu imaadaan oo ay soo daataan uurjiifka ku jira minka iyaga oo aan weli bilo dhammaysan. Taas waxa ugu wacan maadada loo yaqaan papain ee laga helo babayga. Maadadan ayaa qalada ama wax ka beddesha hormoonka loo yaqaan prostaglandinka, kaas oo ka qayb qaata foosha. Haddaba daawade, haddii aad ka heshay muuqaalkan, la wadaag saaxiibadaada oo u shargaray. Sidoo kale in aad muuqaalka like saartaa muhiim ayay inoo tahay. Mahadsanid.